Assalaamu calaykum waa Yuusuf Shire isku soo noqod wanaagsan bishaaro bulshooy idinkuna bilkhayr dhaha Tigana Hotel and Cafeteria hobashu markay daado heegadu meel ku curato habeenimo roob ku doo xagee bay ku hiran jirteen xagee bay ciyaarka xaafadda ku cabi jireen shaaha iyo casriyaha waa kaftamaya dabcan waa kaftamaya hotel iyo cafeteria midkoodna ma furayo cidna uma xaysiinaya hotel iyo cafeteria iyo carwooyinka la isku qurxiyo laakiin maanta waxaan idin wadaa runtii bishaaro iyo war aad iyo aad u wanaagsan oo dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed iyo khaasatan jamaahiirta channelka ku xiran aad uga farxin doona dhalinyaroy waxa aynu ku jirnaa age of information or digital age dunidu waxa ay ku jirtaa casri iyo ahdi oo xogtu ay muhiim tahay daatada iyo xogtu muhiimadeedu waxa ay macaasii dhaaftay ama qiimihii batroolka ah waxyaabaha ugu qaalisan dunida shirkadaha oo giantska technology-ga oo informationka iyo waxyaabaha ka shaqeeyaan waa shirkadaha ugu hantida badan maanta marka xogtu aad bay muhiim u noqotay qofkuna inuu xog sugan helo baa waxa ay noqotay wax xasaasi ah maadaama information aad u fara badan uu dunida yaacayo waa halka Soomaalidu tiraahdo war ninkii helaa tala wacan hela waxaan u eegay ama aan u fiirsaday bulshada Soomaaliyeed iyo sida ay xogta ku helaan ama xog waxbarasho ahaata ama xog safar ahaata ama xog maalgelin ahaata runtiina xog aad iyo aad u kooban baa jirta Soomaalida dhexdeeda taasoo intooda badan khaldan marka barnaamij ayaan ku fikiray in aan ku soo kordhiyo dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan da'yarta xiiseeya waxbarashada scholarship-yada dalka dibadiisa hadii Ilaahay ku ogol yahay internships-yada trainingada conferences-ka iyo shaqooyinkaba waxaan dhisay barnaamij website ayaan sameeyay kaas oo bishii u dambeysay dhan aan ka shaqeynayay oo aan ugu magac daray Somalisco waxa uu noqonayaa hadii Ilaahay idmo sidaan aan rajaynayo in uu noqdo website-ku u weyn ee dhanka Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed ka haqabtira inay helaan xog sugan oo ku saabsan scholarship-yada daafaha dunida ka jira ee ay Soomaalidu access u heli karayaan ama ay Soomaalidu xarayn karayaan internship-yada trainingada conference-yada hadii Ilaahay ku ogol online courses-ka free-ga u ah ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka da'da yar iyo shaqooyinka caadiga ee dalka iyo dibadiisaba ka jira kuwaas oo ay ka faa'iideysan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed haddaba aanan hadalkeenu ku daalin aan toos u sii gobogalo oo aan inuu tuso website-ka aan ka shaqeynayay isbuucyadii tagay kaas oo aan xogo bilow ah ku guray rajaynayna in hadda kadib maalin kasta aan si joogto ah aan wax u soo dhigo waa tahay Google-ka hadda ku qortid somalisco.com website-kan ayaa imaanaysa exciting opportunities for Somalis fursado xamaasad iyo xiiso leh oo loogu talagalay dadka Soomaaliyeed waa tahay scholarship homepage-kiisa markaad joogtid ayaad waxaad arkaysaa scholarship aan soo dhigay Pan African dad fursadii u dambeeyay aan soo dhigay xaggan ayaad ka arkaysaa loogadaas ayaa inoo saaran oo Somalisco ah hadii Ilaahay ku ogol yahay hadda scholarships-ka u timaadid taabka kor home-ka markaad joogtid waxaa arkaysaa undergraduate masters iyo PhD undergraduate kale hadda ku dhufatid waxaan soo dhigay hal fursad oo undergraduate jaamacadda Manchester hadii aan master eegno waxaa arkaysaa fursado badan oo master inaan soo dhigo Mastercard Foundation Thailand kuwan dabcan fiidiyoyi ayaan ka sameeyay YouTube laakiin linkskeediba ayaan soo dhigay PhD-dana hal fursad oo PhD ah jirta kaasoo isna ah Pan African University sidoo kale hadda opportunities ku timaadid jobs conferences and training free online courses fellowships internships mid kasta goorta gaar ugu dhufatid hadda jobs oo kale hadii aynu eegno oo aanu ku dhufano waxaan soo dhigay shaqadan oo ay la yiraahdo European Institute of Peace ay shaqadaas ka xaysiinayso Soomaaliya conferences iyo trainingada hadda u nimaano ICYF training kan oo isaguna isbuucan xirmi doono oo ka dhici doona wadankaasi Turkiga ayaan soo dhigay hadda si eegtid online courses-kana World Health Organization course online u leedahay ayaan soo dhigay waxa weeye fellowships-ka sidoo kale Atlas Corps oo isaguna aan fellowship wadankaas Mareykanka sanadii bar soconaya ayaan xagaa soo dhigay internships-yada hadda u timaadina short term internship la yiraahdo oo Switzerland ka dhacaya isaguna dhawaan xirmaya ayaan soo dhigay detailskiisa hadda ku sii dhufatidna waxaad u imaanaysaa detailski scholarship-kii wuxuu yahay wadanka wax cid xarayn karta faa'iidooyinka hadii Ilaahay ku ogol yahay process-ka application-ka iyo linkiga application linkiga oo goorta ku dhufatid
toos kuu geynaya haddii ilaahay ku ogol yahay meesha aad ka xarayn lahayd oo aad documentskaaga waxaaga gelin lahayd. marka maalin kasta dee dabcan video kama samayn karo youtube-ka internshibyada iyo conferencesyada waxyaabaha yaryarka. marka kan wuxuu website-ku naga saamaxayaa mararka qaybtooda inaan qoraal ahaan usoo dhigo, linkskiina aan kusoo daro, ayna xaggaas ay ka helaan asxaabtu linkiga. marar badan baa macaa dhacda youtube-ka inta video ka samay linkiga la weydiiya, laakiin website-ka haddaad timaadid toos ayaad uga arkaysaa linkiska waxyaabaha aan soo dhigay oo dhan ama fursadahaas markaa jira, kuwa aan muuqaalada ka sameeyey, kuwa aan ka samaynba. marka asxaabay wakana website-ku finally waan furay, hawada ayuu soo galay. other opportunities blog baa isna jira oo aanan weli waxba soo dhigan oo aan soo dhigi doono insha allah. dhankaas sida loo qoro motivation letter of intent, sida loo qoro emailo loogu qoro macallimiinta, samples ayaan iyagana xaggaas soo dhigi doonaa. haddii aad wax su-aala qabtid dabcan markasta qaybta contactiga ayaa iman kartaa, magacaaga iyo adoo emailkaaga gelinaya baa message xaggaa noo soo diri kartaa, kadibna samid baa oran kartaa. sidoo kalena ha moogaanina oo baraheena social media oo dhan xaggan ayaan soo dhigay oo asxaab badan baa commentska iga weydiisa seen kula soo xiriirnaa yuusufow. marka twitterkaygii baa ka helaysaan, facebookgaygii, instagram, linkedin, youtube-keena channelka. haddii aadan channelka subscribe oran dabcan subscribe iyo telegram groupka oo ah runtii meelaan ayaamahan dambe asxaab badan aanu ku kulanno oo ay xog badan ku kala qaataan dhalinyaradu, aniguna aan soo dhigo linkska kawa twitterkaygii. telegram groupkeena waa kaasaa join ayaad oranaysaa haddii aadan telegramka ku jirin. marka guntii iyo gunaanadkii ma doonaya inaan kusii dheeraado. meeshaan waxay noo noqonaysaa meel madal kulmisa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee xogta raadinaya, dhalinyarada Soomaaliyeed ee raadinaysa scholarshipyada undergraduate-ka, masterka, PhD-ga, koorsooyinada gaagaaban, fursadaha kale shaqooyinka, shirarka, online courseska, internship, waxaas oo idil waan soo gelinaya haddii Ilaahay idmo. idinkuna waxaad samaysaan fadlan in aad website-kan la sii wadaagtaan asxaabta iyo dhalinyarada xiiseynaysa barnaamijyadaasi. sidoo kale si aysan ku dhaafin waxyaabaha aan soo dhigo, emailkaaga ayaa xaggaan geli kartaa, kadibna subscribe ayaa oran kartaa. markastoo aan soo geliyo maqaal ama aan haddii ilaahay ku ogol yahay post soo dhigo, notification ayaa emailkaaga toos ugu soo dhacaya. marka hubi inaad emailkaaga xaggaan gelisid, kadibna aad subscribe tirahdid. sidoo kale mudanayaal marweynsa inay sheegay social media-hayga dhan waa kuwaas, isagana follow dhaha. channelkan waxaa kaloo jira isagana waa qaab taleefonna wuu leeyahay oo taleefankaaga haddii aad geshid waad ka isticmaali kartaa oo goorti taleefanka lagu jira waa kana xogtaas baa ka helaysaa. waa tahay marka bishaaradan waday asxaabay waa midaas in aanu maanta wixii ka dambeeya leenahay website weyn oo ay Soomaalidu meel kastoo kala joogto dal iyo dibadba ay ka heli karaan fursadihii ugu dambeeyay, kuwaasoo loo soo baaray laana website badan oo scholarshipya waxaanu ku aragnaa in goortii aad akhrisid hadhow arkaysid wixii inuusan Soomaaliyaba ku jirin oo aadan eligible u ahayn. marka kan kaliya waxaan soo dhigi doonaa insha Allah fursadaha ay Soomaalidu xareyn kartaan, fursadaha dadka Soomaaliyeed baasaboorada haysta ay xareyn karaan. sidoo kale Soomaalida kale ku dhaqan Kenya, Djibouti iyo Ethiopia iyagana waan soo dhigi doonaa fursadaha ay xareyn doonaan. haddaba fadlan ha ilaawin in aad website-kan la sii wadaagtid asxaabta, gruubyada aad ku jirtid oo telegramka iyo whatsappkaba aad dhigtid si ay walaalo badan uga faa'iidaystaan. sidoo kale ha ilaawin inaad youtube-keena channelkeena inaad subscribe, share, like tirahdid sida caadadaas siduu muuqaaladan iyo waxyaabaha faa'iidada badan aan soo kordhinayo ay u gaaraan bulsho badan oo Soomaaliyeed. ilaa kulankan kan xiga waa Yuusuf Shiro oo idinla isma dhaafin. assalaamu calaykum.